wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriye ayaa xalay ka qayb galay munaasabad soo dhaweyn ah oo Dhuusamareeb loogu sameeyay ergada ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta Galmudug in September 4, 2019 ee furmi doono shirweynaha Galmudug ee ayooda uga tashanayaan. Injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo dhammaan ergadii reer Galmudug ugu mahadceliyay ayaa codsaday in guddiga dib u heshiisiinta gacan lagu siiyo ka guulgaaridda shirweynaha reer Galmudug ay uga diyaar garoobaan dhismaha dowlad goboleed dhameystiran oo ka shaqeeya ayahooda. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo ayaa munaasabada ka sheegay in dadaal badan ay guddiga geliyeen sidii u qabsoomi lahaa shirkan. anaga caawa farxad weyn bay noo tahay isku imaadkan caawa ay isugu yimideen xayaartan hor joogta oon u jeedo kulli oo ergadii ka soo qayb gashay shirkan dib u heshiisiinta. waxaan rabaa marka inaan idinla qaybsado 40 iyo waxaan dhihi karnaa bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib u heshiisiinta la magacaabay. waxaan go'aansanay inaan nimaado Dhuusamareeb 45 casho ka hor ayaan nimid halkan taqriiban. marka aan soo baxayno marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen isku aadana Galmudug. Galmudug waa meel dhib badan, waa dad dhib badan, meeshaas wax aad ka soo kordhaysaa lama arko. waxaa inta loogu daray Dhuusamareeb kuma soo jirto Dhuusamareeb dhib gaar ah leeyahay. halka marka isugu nimaday wixii ugu horreeyay ku heshiina waxa waaye inaan ka bixino kelimada waa dhib badan tahay meel iska dhigno. waxaan dhahnaa Galmudug ma dhib badna, Dhuusamareebna ma dhib badna, dadka joogana ma dhib badna. taarta go'aankaasna isla qaadanay halka marka isugu nimaday shirkeena ugu horreeyay. qodobka labaad isla qaadanayna waxay ahayd aayad qur'aan ayaa waxaan ka dhiganay slogan شعارك هوش عن قرنينه. عاد قرآن وحاول يعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من هذا وحاول شراه السوقية مع هو يكون لطقة. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa uu sidoo kale sheegay in laga gaarayo maalinta shirka uu furmayo in ergada loo sameeyn doono wacyigelin iyo kaararkii uu qayb gali lahaayeen shirka. walaalayaal waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mowduucan isugu nimid intii soo hormartay ee waqti badan sugaysay intii soo daahday aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta Galmudug ilaahay ajr iyo xasanaad ha idinka siiyo. si loo kala dambeeyayna waxaa la qiray galabta waa isu soo ururno kulligan cid naga maqana malaha. shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa Arbacada bisha 4teeda oo aan rajeynayno in ra'iisul wasaaruhu uu yimaado Xasan Cali Khayre oo uu shirkaas noo furo. labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka. ergey walba inuu baaj xirto liiskii. Faysal Cadow, Horseed TV, Soomaaliya.